أريد أن أسألك سؤالا لو سمحت يا أختي العسيسة. اسألني ما شئت رديت سؤالك يا أختي الشريف. dugsiga hoose dhexe baaraale ku yaala degmada Karabeer ee gobolka xaflad lagu daafurayay sanad dugsiyeedka cusub laguna abaalmarinayay ardayda kaalmaha wanaagsan ka galay sanad dugsiyeedka hore imtixaanaadkii la qaaday. xafladda ayaa lagu qabtay hoolka dugsiga waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada, macallimiin, waalidiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool degmada Karabeer. ugu horeyntii halkaa waxaa ka hadlay maamulaha dugsiga isagoo ka warbixiyay marxaladaha uu soo maray dugsigu. xafladan waxa ay ku saabsan tahay furitaanka baan leeyahay sanad dugsiyeedkan 2020 iyo jaa-isad lagu abaalmarinayo ardaydii kaalimaha koowaad ka gashay imtixaankii sanad dugsiyeedkii 2019 iyo 2020. waxaan filayaa halkan waxaa jaa-isad ku qaadan doona gireedhada ay u kala sarsareeyeen iyo say kala ahaayeenba 36 arday ayaa abaalmarin lagu siin doonaa. halkudhegeena sanadku waa tayo. sidoo kale waxa iyaguna hadalkaas kaga dawamaray waalidiintii iyo masti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi muntafaca ilaahay ka dhigo, cilmigii la kala dhaxli lahaa ilaahay ka dhigo. ardada waxa weeye maanta halkaada waxa weeye la soo buuxiyeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga ay barteen ilaahay ku anfaco. ilaahay ha u fududeeyo waxa weeye in cilmi kale waxa weeye sii bartaan. macallimiintuna ay caajisin. macallimiinta hawsha inta gacanta ku haysay ee wax baraysay, barbaarinaysay, waalidkuna la kaashanayay. mahad gaarin mudan ilaahay baa mahad leh. runtii haddaynu nahay reer Karabeer nasiib fiican baynu leenahay. macallimiin wacan baynu haysanaa inuu dadaalaysa ardayda inuu dadaalaysa hadday maxad tahay iyo hadday iskuul tahay dugsi sare iyo dugsi hoose iyo hadday macaamilo tahayba. dadkeena waalidiintaana waxaan leenahay ma dadaalayeen ugu dheemeeya aad iyo aad dadaalka loo sii kordhiyo. waxaan u ducaynaynaa macallimiintii waqtiga dheer iyo juhdiga intaa la soo geliyey. ilaahay idinkana cilmiga iyo xoodka haydii barakeeyo iyo caruurta aad soo saarteen dib mustaqbalkooda inaad u aragtaan Allah idin tuso. annagu waalidku wayna ka mahad celinayna ilaahay baa mahad leh. waad kordhinaysaan, waad dadaalaysaan, ducadaanu ducanaad qaadanaysaan, ilaah wayna aqbalaya. hoose kooti waxay dhahaan ilmo inaad korisaa xisiisaa way fududahay, laakiin inaad qiyam toosan oo tarbiyadaysan aad ka dhigta aad buu adag. toban caruura oo sii kartaa laakiin ay noqoto toban akhlaaq oo dhisan. waxaan leeyahay waa maxay arday wax bartay waa maxay haddii aad fasalka timaadid oo aad maqale joogta tahay waxba maad baranine. inaad uniform soo qaadato maaha arday wax bartay. inaad buug iyo qalin soo qaadato maaha arday wax bartay. waa kuma arday wax bartay. arday wax bartay waa inuu 3 meelood ka shaqeeyaa. waa inuu gacanta ka shaqeeyaa, afka ka shaqeeyaa, maskaxda ka shaqeeyaa. ardaydu hadda ka hor shaacir badiyay faatan tacliimu waqti shabaabي fakabir عليه 4 وفات waqti isagoo dhalinyaranimadiisii ay dhaaftay waxbarashadu waa qof dhintay kutubko afar ragcadood macnaha afar takbiirado salaatu janaasa. halka waxaan kaloo sheegayaa waalidiinta canaantu way nagu taallay hableena waxbarashada aynu ku ilaalino. sidaa banaanba gabadh kasta oo wax barata markay dugsiga sare wareegayso maantana waan ka hadlay. waxa dhaliishu ku taalla waa dugsiga hoose dhexe gabdhuhu markay wareegayaan ma aqaan meel ay aadaan. waxaa la doonayaa iskuulka sare inay gabdhuhu wareegaan si gabdhuhu wax u bartaan oo hooyo kasta ay u noqoto hooyo wax baratay. taran iyo tacliim baa taagan loo yahay. talaxuma haddaad tallaabooyinkaa digtaba tagid ka weydo tashiga aqoontuba marbay taagan noqotaaye. taran iyo tacliim baa taagan loo yahay. nin waliba wuxuu tabcaduu taam la yahay. tow haddaad tidhaahdo tudicyo maandhaafti tukashada salaadan haddaad toogan weydi taraf dhaafay teginta aakhira. waryaadha la tukadayaa laga cabsado. haddii qaadka la waayo qarash baa hakanaya oo qoysas baa aflaxaya. ninka qaadka cunaa waqti baa ka khasaara oo qayrkii wuu ka hadhaaye. haddii qaadka la waayo aabbaha qabsanaya qabyaha u ka ahay. iyadoo ay ujeedadu tahay furitaankii dugsiyada
وخضر تربي ورك السومالي كيبه لا سانود